imaamkeenii weynaa maxamed binu ismaaciil albukhaari raximahullah waxa uu u safray magaalada basra isaga oo ka aanbabaxay magaalada baqdaad. safarkaa adag waxa uu u galay nin uu maqlay xadiis uu hayay oo uu rabay inuu saxiixiisa iyo runtiisa hubiyo. nin soo wariyey oo ku noolaa basra. markii uu basro tegey ee uu ninkii ku soo baxay gurigiisii ayaa waxa uu arkay ninkii uu u socday oo dameerkiisii u yeedhyeedhaya oo weel aan waxba ku jirin oga dhigaya inuu cunto ku jirto kuna sasabaaya oo u wadaa xaggaa iyo xerada dameerka si uu meesha ugu xereeyo. imaamkii markuu arkay ninku waxa uu samaynayo ugu horreyn wuxuu uga nasteexeeyey oo u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu ina faray in loola dhaqmo xayawaanka iyo in lagu naxariisto. waxaanu u sheegay inuu u socday inuu xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka soo wareeyey uu weydiiyo, laakiin isagoon weydiin ayuu iskaga tegey. ninkii ayaa yidhi oo i weydiiyey xadiiskii aad u socotay. imaam albukhaari waxa uu ku yidhi ku weydiin maayo adigoo ah mid dameerkiisa been u sheegaya. subxaana allah, sabankan aan joogno way ka sii xag jirtaa oo beentii waxay noqotay mid aad u faafta. telefoonadii laga sheego, siyaabo kala duwan loo sheego, lagu kaftamo. waxaan isku dardaaranaa walaalayaal maanta waxa weeye qofku si uu u noqdo mid run sheega waxa aad ku heli kartaa darajadaasi salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aad badiso. haddii salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aad badiso waxaad noqon doontaa qof run sheega ah oo runta sheega oo xataa aan been sheegin hadduu ammaanaya wax iyo haddii kaleba adigoo aani kugu ahayn kalifaad iyadoon kugu ahayn. marka qof kasta oo nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa badiya waxyaabaha uu helo ee akhlaaqiyaadkiisa waxaa ka mid a inuu noqdo qof runta sheega. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ina waafajiyo kuwa runta sheega. waxaad ogtihiin xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu ina lahaa calaykum bisidqi fa ina asidqa yahdii ila albiri wa ina albira yahdii ila aljanna. yacni runta sheega. runtu waxay kugu hanuunaysaa dariiqa wanaagga iyo samaha. dariiqa wanaagga iyo samahuna wuxuu kugu hagayaa jannada. ilaahay subxaana watacaala ha inugu anfaxo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.